jamhuuriyadda Somaliland gacmaha ka laaban mayso weerarada qaawan ee Puntland iyo Muqdisho ku soo qaadeen Somaliland waa murta ay ku saabsan tahay faaladan warku waana qalinkii Maxamed Saciid Maxamed sidaynu la wada socono waxa 26kii bishan December weerar gardarra oo bareedha ay ciidamada maamulka Puntland iyo maleeshiyad ka socda Soomaaliya ay ku soo qaadeen shacbiga Somaliland ee ku nool gobolka Sool iyagoo halkaas ugu dilay 7 qof oo isugu jiray maata iyo caruur isla markaana ay ku dhaawaceen tobaneeyo kale ciidamada Puntland iyo ciidamada beeleedyada ay soo abaabuleen waxa ay bariyahan dambe damac iyo dhul balaarsi ka wadeen dhinaca bari ee gobolka Sool iyadoo aynu ognahay in xuduudda jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya ay dhacdo meel 6 kiiloomitir oo kaliya u jirta magaalada Garowe sidaas daraadeed ma noqonaysa jamhuuriyadda Somaliland meel loola soo degdego kharbudaad iyo qalalaase midna waxa samarag madoon ah in maamulka farmaajo ee fadhigiisu yahay Muqdisho uu xeelad iyo dhuumasho dhabarko muuqdo uu ugu soo bareeray xuduudaha mucayinka ah ee jamhuuriyadda Somaliland xukuumadda iyo shacbiga Somaliland waxa ay markasta jecel yihiin isla markaana ay xeeriyaan in dalalka jaarka ay kula dhaqmaan nabad iyo is-ixtiraam waxa si xaqiiqi ah in maamulka Soomaaliya aanay taasi u cuntamin iyagoo hadda isku garabsanaya waxyeeleynta shacbiga jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Sool waxa maamulka Itaalka daran ee farmaajo iyo Puntland u sheegaynaa inaanay mahadin doonin dhagarta ay ka alooseen gobolka Sool ee ay ku laayeen shacbiga iyo dadka maatada isla markaana ay dacar ka leefi doonaan qalalaasaha iyo fidmada ay ka wadaan gobolka Sool shalay ayay ahayd markii maamulka farmaajo ee Villa Soomaaliya uu fidmo ka abuuray magaalada Boosaaso taasi oo natiijadeedu noqotay qax barakac iyo dad la laayay iyadoo dhaawacyadii ugu khatarsanaa loola soo cararay Somaliland oo hadda lagu dabiibayo qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Hargeysa iyadoo horodhicii dadkii ku barakacay dagaalkaasi ee reer Puntland ay soo miciin bideen jamhuuriyadda Somaliland si ay uga nabad galaan fidmadaasi haddaba waxa la yaab iyo ama kaaga in maamulka farmaajo iyo Puntland ee Soomaaliya oo xasilin kari waayay dalkoodii iyo dadkoodaba waxa qura ee ay ka midaysan yihiin tahay cadaawada iyo xumaatada ay u hayeen jamhuuriyadda Somaliland waxaase ilaahay mahadiya in Somaliland maanta marayso meel uu caalamku kaga marakacay horumarkeeda iyo dawladnimadeeda iyadoo aanay beesha caalamka ka helin wax taageera ugu dambeyn waxay beesha caalamku maanta garowsatay inay khasaare iyo faramareyn ka joogaan Soomaaliya oo ay muddo 30 sanadood ka badan ay dhoobdhoobayeen in tacabkoodii noqday hal bacaad lagu lisay inta waxaan ku soo gabagabeynaya faaladii warka oo uu qoray Maxamed Saciid Maxamed waxaana halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah Saabi Cabdi Goole